runtii waa ku mahadsantihiin shaqadan qiimaha badan ee aad soo dhamaystirteen aad soo qabateen oo ah inaad soo gaarsiiseen maanta in aan dhagax dhigno dib loo dhiso xarunta wasaaradda runtii ay ka muuqato saad sheegtay duugnimo ka muuqato marka in dib loo dhiso aad iyo aad bay runtii muhiim u tahay wasaaraddan wasiir waa wasaaradaha muhiimka u ah qarankan waxay gateway u tahay ganacsigii iyo wax soo saarkii dalkan iibgeyntiisii iyo dadka Soomaaliyeed oo wixii ay isticmaali lahaayeen hadday tahay cunto hadday tahay dawo hadday tahay qalab waxa la wixii ay u baahnaayeen ay tahay in laga qabtiro sida ugu sahlan wixii la soo saari karo dalka gudihiisana in laga soo saaro wixii kale ee banaanka ka imanayana sida ugu sahlan ugu raqiisan ugu quality badan ay ku heli lahaayeen in laga taabageliyo ayay wasaaraddan runtii u xilsaaran tahay waxa kale wasaaraddu u xilsaaran tahay in ay dhiirigeliso ganacsiga Soomaaliyeed iyo ganacsatada iyo wax soo saarkeena iyo warshadaheena waxaan insha Allah rajaynayaa dalkan inuu u jihaystay dhinaca horumarka iyo dhinaca wax soo saarka in warshado badan waddankan ay ka hirgeli doonaan haddii la yiraahdo ama Soomaali ha lahaato ama dad aan Soomaali ahaynba investment ku sameeyaan dalkan maadaama hadda nabadii ay fiicnaatay iyo deganaashihii waxa muuqata ifafaalaha in ay si xoog loo socdo dhinaca investmentiga dalkan la gashanayo wasaaraddaas runtii waxa inta si dheer isku duuda iyo isku habaynta ganacsigeena Soomaaliyeed iyo ganacsatadeenna oo runtii intii hadda aad timideed joogtay ay wax fiican laga qabtay ana rajaynaya insha Allah in la dardar gelin doono rugta ganacsiga iyo guud ahaan ganacsatadaba wada shaqayntooda iyo horumarkooda in insha Allah si fiican haddii la yiraahdo ay loo hirgelin doono waana muuqataa si wanaagsan u muuqataa marka mar kale wasiir waan ku mahadcelinayaa waxaan u hambalyeeynaa runtii adiga iyo guud ahaan wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dawlaha agaasimaha iyo bahda wasaaradda oo dhan waan ku hambalyeeynaa dhismahan aan maanta dhagax dhignay insha Allah waxaan rajaynayaa in waqti dhow aanu joogno asagana xarig furkiisa haddii la yiraahdo ama xarig shirkiisa insha Allah inaan joogno aad baad u mahadsantahay